kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idil ahaantiin meel kastoo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida channelka qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ciidamada gorgor ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaad ku maray inay difaaci doonaan madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin oo maanta si rasmi ah la wareegay xilka la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Roble oo taliska booliiska Soomaaliya kan Amisom kala hadlay amniga doorashooyinka intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aad kaga bugan doontaan tabinteena tooska ah wararkii ugu dambeeyay Soomaalida channel haddii aad nagu cusub tihiin waxaanu idinka codsanaynaa inaad subscribe aad noo saartaan barta channelka YouTube-ka aad naga daawanaysaan si aad uga mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jeer sida joogtadana halkan aynu ugu soo baahino noqon daawadaha ugu horeeya ee hela xogaha wararkeena daawada qodob walba warkan ka mid ah aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose commentiga inoogu reeb hagaagaynu ku bilowno ciidamada gorgor ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa wacad ku maray inay difaaci doonaan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo sida ay noo xaqiijiyeen ila muhiim ah oo ka tirsan taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka soconaya baabul ciidan oo ay wadaan ciidanka gorgor ee qaybta ka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kuwaas oo qorsheynaya in ay ka hortagaan duulaan walba oo ay sheegeen inay suurtagal tahay in lagu carqaladeeyo amniga dalka iyo sidoo kale hanaanka uu ku wajahayo maamulka dawladnimada Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo saraakiil ka tirsan ciidamada gorgor ee ku sugan Muqdisho ayaa wacad ku maray sida ilaha muhiimka ay noo xaqiijiyeen inay difaaci doonaan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyadoo ay taasi sabab uga dhigeen inuu yahay madaxweynaha mid ay ka go'an tahay wadaniyada isla markaana uu ku sifoobay dal jacayl hase ahaatee ay sheegeen inaysan marnaba ogolaanaynin in la qalqalgeliyo amniga guud ee dalka iyo kan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya talaabadan ayaa ku soo aadaysa xilli uu khilaaf xoogan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu kala dhaxeeyo ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble isla markaana siyaasiyiinta mucaaradka ay garab buuxda u noqdeen ra'iisul wasaaraha una balan qaadeen cudud ciidan inay ku taageeri doonaan ciidanka gorgor ayaa waxay ka mid yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwada ugu tababarka wanaagsan isla markaana tababar ku soo qaatay gudaha dalka Turkiga dawladda Turkiga ayaana door muhiim ah ka qaadatay tababarkooda iyo sidoo kale in ay qalabeyso ciidanka gorgor guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya oo ay ka howlgalaan ayaa si guud looga dareemayaa saameyntooda gaarka ah ee ciidankan ay leeyihiin Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa la wareegay xilkiisa la taliyaha amniga qaranka xilli madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu xilkaas u magacaabay la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa maanta si rasmi ah la wareegay xilkaas cusub oo dhawaan loo magacaabay sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada qaranka xilkaas ayaa waxa hore u hayay oo laga qaaday Cabdi Saciid Muuse Cali oo loo wareejiyay inuu noqdo agaasimaha guud ee madaxtooyada xilkaas oo uu si rasmi ah ula wareegay 11 bishan aynu ku guda jirno ee September agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku yiri la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin ayaa maanta la wareegay waajibaadkiisa kadib markii dhawaan la magacaabay qoraalkan ayaa intaas ku daray Fahad ayaa madaxweynaha uga mahadceliyay xilkan halka uu balan qaaday in uu dalka ugu adeegi doono nafhurid iyo wadaniyad si sare loogu qaado amniga guud ee dalka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa xilkan u magacaabay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir 7 bishan aynu ku guda jirno ee September markaas oo qoraal uu soo saaray ku yiri madaxweynaha waxa uu aqbalay istiqaalada uu soo gudbiyay agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir isagoona ku bogaadiyay shaqadii wanaagsaneed ee uu ka qabtay dib u habeynta hay'adda madaxweynaha ayaa sidoo kale u magacaabay mudane Fahad Yaasiin xilka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya go'aanka madaxweyne Farmaajo ugu magacaabay Fahad Yaasiin la taliyaha amniga qaranka ayaa yimid maalin uun kadib markii uu guul dareystay isku day uu ku hor istaagay shaqo joojin uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku sameeyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ahaa agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka NISA
Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa 21 bishan kusoo laabtay magaalada Muqdisho maalmo kadib markii diyaarad uu la socday dalka Djibouti lagu hakiyay kadibna dib ugu laabatay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Talaabadaas ayaa madaxtooyada Soomaaliya waxay ku tilmaamtay mid afduub ah oo lagu kacay wafdiga hogaaminayay la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa taliska booliiska Soomaaliya Amisom waxa uu kala hadlay amniga doorashooyinka dalka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu maanta la kulmay taliyaha booliiska Soomaaliya, taliska booliiska Amisom iyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee Somaliland. Kulankan waxaa looga hadlayay fududeynta iyo amniga doorashooyinka aqalka sare ee gobolada waqooyi oo toddobaadkan bilaabanaysa. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa faray saraakiisha kala duwan ee ciidamada inay dardar geliyaan howlaha sugidda amniga doorashooyinka golaha aqalka sare ee gobolada waqooyi ee Soomaaliya oo doorashadoodu ay ka dhacayso magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Maalinta beri ayaa waxaa la filayaa in musharaxiinta aqalka sare ee gobolada waqooyi ay jeediyaan khudbadahooda musharaxnimada, isla markaana maalinta Talaadada ee xigtana la filayo inay dhacdo doorashada xubnaha golaha aqalka sare ee ku matalaya deegaanada Somaliland ama gobolada waqooyi baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan golaha aqalka sare ee dalka. waxaase dad badan ay aaminsan yihiin Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble kulankan uu la qaatay saraakiisha ciidamada booliiska iyo kan Amisom inay tahay mid uu ku muujinayo awoodiisa maadaama dhawaan qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne Farmaajo gabi ahaanba lagu ciribtiray awoodii uu lahaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku howlgeliyay. Muqdisho waxaa ka soconaya dadaalo la isugu soo dhaweynayay madaxweynaha iyo sidoo kale Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble inkastoo ay guul dareysteen dadaaladaasi haddana Ra'iisul Wasaare Roble ayaa u muuqanaya mid howlihiisa shaqo ku soo koobay arrimaha doorashooyinka. saaxiibada qiimaha badan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida channel-kan aad ka daawanayseen waa inaga intaa waad ku mahadsantiin daawashada warkan midkiisa xiga inta aynu dib u kulmi doono aqyaarta qiimaha ee qadarinta naga mudan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.